5 habdhaqan oo la raaco si aad u kasbato ixtiraam shaqada. Sida dadka looga dhigo inay kugu ixtiraamaan xafiiska. Ixtiraamka maaha mid la weydiiyo dadka kale, laakiin waa wax loo baahan yahay in dadku ku kasbadaan hadalkooda iyo ficilkooda. Kasbashada ixtiraamka goobta shaqada maaha kaliya karti, waxay ku saabsan tahay sida aad naftaada u xakamayso, ula dhaqanto dadka kale, oo aad uga qayb qaadato jawi shaqo oo wanaagsan. Haddaba, halkan waxaan ku taxnay qaar ka mid ah aadaabta la raacayo, kuwaas oo ka dhigi doona kuwa kale inay kugu ixtiraamaan shaqada. Saaxiib sabiskaraab iigu qabo mahadsanid. Si xirfadaysan ula xidhiidh. Xiriir cad oo toos ah ayaa muhiim u ah guusha goobta shaqada. Si cad u sheeg fikradahaaga marka aad la xiriirayso asxaabtaada, hadday tahay iimaylo, kulamo, ama wadahadal caadi ah. Iska ilaali inaad shaqada ku xamanayso, waayo taasi waxay keenaysaa inay dadku ku ixtiraamaan oo aanay si dhab ah kuu qaadan. Xasuusnow in aad wax yar ka jawaabto, oo aad wax badan uga jawaabto maxaa yeelay tani waxay kaa dhigi doontaa inaad u muuqato mid xirfadle ah. Isticmaalka luqadda edeb leh, ilaalinta codka ixtiraamka leh, iyo hubinta in fariimahaagu yihiin kuwa kooban oo xog leh ayaa muujin doonta xirfadaada. Sidoo kale, intii aad diiradda saari lahayd hadalka, isku day inaad noqoto dhegaysta firfircoon. Tani sidoo kale waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xidhiidhka iyo xidhiidhka dadka kale. Noqo mid la isku halayn karo oo la xisaabtami karo. Kalsoonidu waxay ku dhisan tahay isku halayn. Markaad hawl gasho, la soco adoon u baahnayn xasuusin joogto ah. Qabashada waqtiyada kama dambaysta ah, ilaalinta waqtiga, iyo bixinta shaqo tayo leh waxay si joogto ah u tusinaysaa inaad si dhab ah u qaadato mas'uuliyadahaaga. Marka si joogto ah loo sameeyo, dadku waxay ku tixgelin doonaan inaad tahay qof la isku halayn karo oo la aamini karo, ha noqoto asxaabtaada ama madaxaaga. Sidoo kale, haddii ay dhacdo inaad khaladaad samayso, iyaga u gaar intii aad qaladka u wareejin lahayd. Sidoo kale, xal u raadso mashaakilaadka, taasina waxay xaqiiqdii ku kasban doontaa ixtiraam goobta shaqada. Qof walba u muuji ixtiraam. Inta badan waxaa la yiraahdaa, waxaad goosataa waxaad beerato, waana sax. Iyadoo aan loo eegin kala saraynta, ula dhaqan qof kasta laga bilaabo layliyo ilaa madaxda sare, si naxariis iyo tixgelin leh. Tani waxay u ekaan kartaa tilmaam yar, laakiin mustaqbalka fog dadku waxay had iyo jeer xasuusan doonaan sida aad dareentay. Ixtiraamku waa waddo laba geesood ah, sidaas darteed haddii aad rabto inaad kasbato ixtiraamka dadka kale, waa inaad marka hore dadka kale ula dhaqantaa si naxariis leh. Ilaali xirfad yaqaannimada, xitaa cadaadis. Sida aad naftaada ugu dhaqanto marka aad ku jirto xaalad adag ayaa ka hadlaysa dabeecadaada. Haddii la xaliyo dhaleecaynta, isku dhacyada goobta shaqada, ama waqtiyada kama dambaysta ah ee walaaca leh, had iyo jeer ilaali degenaanshaha iyo xirfada. Labiska ku habboon ee goobta shaqada waxay sidoo kale gacan ka geysataa sawir xirfadeed. Markaad si joogto ah u ilaaliso dhaqanka xirfadda, asxaabta iyo kormeerayaashu waxay ku arkaan inaad tahay shakhsi qaangaadh ah oo mas'uul ah, iyagoo sii xoojinaya ixtiraamka ay ku hayaan. Noqo ciyaaryahan kooxeed. Goobaha shaqadu waxay ku horumaraan iskaashiga iyo noqoshada ciyaaryahan kooxeed taageero, waxay lagama maarmaan u tahay in la helo ixtiraam. Sii caawi marka saaxiibkiis uu halgamayo, la wadaag khibradaada iyo aqoontaada, oo u dabaaldeg guulaha kooxdaada intii aad raadin lahayd sumcad shakhsiyeed. Dabeecad togan, wada shaqayneed waxay gacan ka geysataa dhisida xiriiro xooggan iyo dhisida kalsoonida xubnaha kooxda. Adigoo si joogto ah u tusinaya inaad tahay qof la isku halayn karo, cadaalad ah, oo tixgelin leh, waxaad dhistaa xidhiidhyo xirfadeed oo xooggan oo dadka kale ka dhigaya inay ixtiraamaan oo ay qadariyaan wax ku biirintaada goobta shaqada.